السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا ركتا تي في ولا kala socotaan wararkii ugu dambeeyay kuna soo dhawaada qaabkii loo badbaadiyay xabsa maxamed luqmaan oo dhowr maalmoodba ku afduubneyd magaalada Nairobi kaligeed ma aha gabdho dhowr ayaa la waayay isla markaana qaarkood dib baa loo helay xabsa maxamed luqmaan ayaa 15 bishan June laga waayay goobteeda ganacsiga oo ku taala xaafadda Islii ee degmada Kamakunji xilli ay soo xidhay baa la yiri ganacsigeeda waxaana muuqaal yar oo kooban laga helay CCTV kamerada xilli ay ka baxaysay goobteeda shaqo galanimadii 15 bishan June ee toddobaadkan waxaana gelinkii dambe ee 16 bishii June laga soo duubay muuqaal argagax leh oo runtii aad looga naxay isla markaana argagax galiyay bulshada Soomaaliyeed iyo dhammaan shacabka reer Kenya kaas oo ka muuqday jirdil aad u ba'an iyo waliba nabro xoogan oo ka muuqday jirkeeda waliba sidoo kale waxaa laga codsaday ama familkeeda la weydiisanayay lacag u dhiganta $50,000 ama 5 milyan oo Kenya money ah taas oo lagu tilmaamay madax furasho ama in lagu heli doono madaxeeda ugu dambeyn subaxnimadii hore ee saaka ayaa ciidamada dambibaarayaasha iyo dabagalka faral dambiyeedyada ayaa gacanta ku soo dhigay eedeysane loo haysto inuu ka dambeeyay afduubkii xabsa ama uu qayb ka ahaa iyo sidoo kale xabsa oo nabad qabta halkaas oo laga soo saaray haanta biyaha oo lagu dhaxriday isla markaana la sheegay in lagu qasbay ciidamada ayaa arintan faahfaahin ka bixiyay isla markaana waxay sheegeen inay shacabku ku mahadsan yihiin qaabka wanaagsan ee ula shaqeeyeen ee u soo gaarsiiyeen akhbaaraadka waxayna uga digeen dambiilayaasha iyo kuwa dambe isku day doona fal noocan oo kale ah inay ka digtoonaadaan gacan birana lagu qaban doono ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed waxaa farxad u ahaa inay gabadhii xabsa maxamed luqmaan ay nabad qabto dibna loogu soo celiyay xaafadda Islii isla markaana lagu dabiibay cisbitaalka waalidkeeda oo qoys ka joogay nolosheedana ay mar kale dib u heleen gabadhoodii wixii akhbaar ka soo kordhana waxa ku daawan doontaa wararkeena dambe halka aad kala socoteen waa Rugta TV odaalaba kala socotaan wararka iyo barnaamijyada ugu xiisaha badan